بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضوضيال إذا لهانتين بملك صاد الدنيا دافية نجد جسنسان هل كان يواتي تلفزيون عالمي الصمصات حرنته كلية هي مجالة قال كعية قبل كمدو ضوضيال واحد كسر واتين ورئيس جارة وعن ليا لندن هدي الله ودل وقلاده نبضون ياسين عبد السمد أو كم ده نبضون هذا عنك كأ بنتلان يجودهان دلك الصومالية نبضون كأيا هدي الله ودل وقلاده وحن كور يسندنا أرهم بدن ولا حريرة xaaladda xilligan ee Puntland xisbiyadii la hakiyay doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan Puntland iyo waliba xildhibaanada dhawaan la soo xulayo nabadoonka ayaan ku soo dhaweynaya marka hore nabadoon ku soo dhawo marka horeysa telefishinka caalamiga ah ee Samsat xarunta uu ku leeyahay magaalada Gaalkacyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anoo ka faa'iideysanaya fursadda uu siiyay TV-ga Soomaalisat waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland waxaan kale u tahniyadeynayaa olaya kullu caam wa antum bikhair caalamul islaam oo dhan iyadoo wali lagu jiro maalmihii ciidda. nabadoon waxaad inaga wartaa qaabkii uu ku yimid aasaaska Puntland iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay. dadku marjac bay dadkaani lahaayeen oo ilaa kaab oo idaaroodaha laga soo bilaabay maanta inta ka dhaxlay dadkaani dad waxay lahaayeen dhaqan iyo xukun iyo boqortooyo leh dhaqan baa jiray dhaqankii baa dib loogu noqday ismadii baa isu yimid iyagoo siyaasiyiin iyo cid kale markaa u yeerin waxa la yiri wax u badbaadinaa waxa la yiri aynu sameeyna nidaam iyo maamul dadkii dalkiina lagu difaaco dadkan laftooda lagu kala nabadgeliyo midnimadoodina la isugu keeno horta aasaaska Puntland fikradii uu ku dhashay saasa ka mid ahayd markaas ismadii nimanka markay warbixiyeen ba ismadii waxay yiraahdeen marka aynu talin siyaasiyiintii bay u yeereen go'aan baa la qaatay waxa la idin ka rabaa nimankiina siyaasiyiinta bal Soomaali intaan la aadin inaad anaga dawlad noo dhistaan oo maamul noo sameeyaan oo systemka dawliga ah taagtaan shirkaas ismadu isugu imaanayaan 98kii wuxuu ka dhacay 97kii dabayaaqadiisii 98kii bilowgiisii iyo wuxuu ka dhacay Garowe waxa la oran jiray shirka wada tashiga ismada Puntland ama ismada xilliga waxa shiray ismada beesha harti yaa shiray dabcan kuma ay jirin marka ismada kale oo beesha daarood kulankii dambe wuxuu isu bedelay in loo yeero siyaasiyiintii kadibna ay dhalatay fikirkan in la dhiso Puntland waxa lagu cazumay beelaha daarood oo dega gobolada dhexe gobolada waqooyi matalan galgaduud mudug sool meesha la yiraahdo sanaag bari iyo nugaal ergooyin baa la isu keenay shirkaasi ilaa 8 bilood muddo ku dhow uu socday allah u raxmade waxa shir gudoon ka ahaa islaan maxamed islaan muuse historygiisa iyo taariikhdiisa iyo recordkiisa way yaalaan nasiib wanaag waxa wax maanta cid inkiri karta ama wax ku dari karta ama wax ka dhimi karta maaha waa record yaal waliba anigu dadka recordka ayaan kamid ahayo xilligaas nabadoon ma ahayna waxaan ahaa nin wariyaa film qaadaan ahaa insha Allah Samsat waa ka caawin doonaa inaan historyga waxaan ka hayo siiyo hadii Ilaahay idmo waxay ahayd Puntland ismaheedii wax taariikh leh dawladda ma caawin urur ma caawin cid kale ma caawin waxa lagu dhisay dadka reer Puntland xoogoodii iyo xoolahoodii iyo maskaxdoodii waxa la isku keenay afkaaro tiro badan oo kala gedisan oo reer Puntland ama beelaha daarood laftooda ay kala qabeen waxa la isku aakhirkii la isla meel dhigay in qarannimada Soomaaliya ay muqaddis tahay sababta Puntland loo dhisay inay tahay jiritaanka Soomaaliya inay tahay inta Soomaaliya kala maqan tahay in dadkaan ay ismaamul iyo nidaam yeeshaan maalintii Soomaaliya isu timaada inaan dadkaan noqon dad habsaamay iyo difaaca shacabka iyo maatada iyo maxasta dadka isku isirka alxamdulilaahi rabbil caalamiin labadii kowdii bishii 9aad 98kii yaa waxa lagu guuleystay in la dhiso xukuumaddii ugu horeysay ee Puntland
madaxweynaheedii iyo madaxweyne ku-xigeenkii baa la doortay kadibna waxaa la dhisay golihii xukuumadda dabcan golihii baarlamaanka ka horeeyey golihii baarlamaanku markaas dib buu ka yimi shirweynaha waxaa lagu doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka laakiin baarlamaanka xilligaa kadib baa la xareeyey dowladdaas waxay wax ka bilowday meel ebera waxaan xusuustaa dugsiga sare ee garowe gambool yaa waxaa la dejiyey madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii waxaa xafiis looga dhigay kursigii iyo miiskii ugu horreeyey oo loo dhigay ay ahaayeen galaasyada iskoolka gambool kuraas iyo miisada laga soo qaaday oo kuwii ardayda ku fariisan jirtay madaxweynaha waxaa loo dhigay kursigii maamulaha iyo miiskiisii laakiin madaxweyne ku-xigeenka maalintaa waxaa loo dhigay miis iyo kursi laga soo qaaday galaas heerka markaa xaaladdu joogtay puntland 3 sano kadib 2 sano markii ay joogtay waxaa lagu guulaystay in la dhammaystiro haykalkii dowladeed oo loo baahnaa waxay yeelatay ciidan 3 dufcadood xilligaa ku soo baxay oo boliis iyo daraawiishba isugu jira oo 6 bilood loo soo saaray ilaa 4,000 ilaa 3,000 iyo siyaado yaa ciidankaasi ahaa dowladda maxamed cabdixaashi baa xigtay muddo yaroo kooban bay joogtay waxay suurto gelisay in si dimuqraatiga loo tartamo xilkana loola kala wareego cadde iyo maxamed cabdixaashi baa ku tartamay maxamed cabdixaashi baa hal cod lagaga adkaaday si kalsooniya walaalnimo loo wareejiyey cadde 4 sanuu xilka hayey xilligii cadda yimid waddanku dhibaato badan buu la kulmay waqooyiga duulaanaa kaga yimid oo waa tii laascaana la qabsaday halkan xilligii maxkamadahay ahayd oo waa tii dee maxkamaduhu halkan soo fariisteen oo dagaalka dhibta badan qabsaday colaado sokeeyaa beelaha dhexdooda ka abaabulmay oo dagaalkii cagaare iyo cadaadda iyo mushkiladihii halkan ka dhacay baa iyaguna jiray marxalad abaarihii lafteedu waa jirtay sunaamigii baa dhacay wax badan oo waxaan isleeyahay markii loo fiiriyo garowshiye ay ku yeelan kartay xukuumaddii xilligaa jirtay in sistemkan dimuqraatiska ay meel mariso waxyaalo badan oo hakad ku keeni karay yaa dhacay dowladdii federaalka oo iyada lafteedu puntland qayb ka ahayd yaa iyaduna xilligaas dowladdaa teeramkeeda ku soo aaday oo haddii la odhan karo naf iyo maal iyo dhaqaale waxay ahaysayba waxay ku dhistay federaalka dowladdaasi 8% waxa loo dhiibay waxaa ugu muhiimsanaa sistamkii iyo dadkiiyo dalkii degmada laascaanood keliyaa maqnayd markay xilka wareejisay laakiin dadkii iyo nidaamkii iyo magacii puntland waa jiri wax tabasho kastaa ha jirto laakiin way tartameen xilligii loogu talagalay bay tartankii qabteen waa laga guulaystay si nabadgelyaha sharaf leh u wareejiyeen oo madal leh qolada hadda qabsatay oo cabdiraxmaan iyo xukuumaddiisii waddan markaa nabada oo aan dhibaato badani jirin oo waxa ay ku yimaadeen lafteedu ay ahayd isbedel doon xukuumaddan cabdiraxmaan waxaa la oran jiray isbedel doon anigu raggii ka ololeynayay baan ka mid ahaa oo cadde iyo raggiisa markaa ku kacsanaa oo lahaa wixii loo dirsaday bay ka gaabiyeen isbedel doon rajada laga qabay waxay ahayd oo ay tartanka ku galeen oo lagu doortay 3 waxyaalood inay fuliyaan amniga waddanka inay wax ka qabtaan oo ay xilliyadaas waxaan la yidhaha madax duubka madax jabiskaa bilowday tan labaad waxay ahayd inay suurto geliyaan dimuqraatisationka oo dadku gaaro 1 man 1 vote oo shuruudihii loo baahnaa iyo rukumadii loo baahnaa oo dhan la fuliyo tan saddexaadna waxay ahayd gobolka sool oo markaa degmada laascaano iyo hareeraheeda waxa ay maqnaayeen inay soo celiso ayaan darro waxaa la oran karaa 3 qodob midna kuma ay guulaysan waqtigii teeramkii loo qabtayna mid kale oo iskaa wax u qabsaabay ku darsadeen haddana xaaladoodu hadde waxay noqon doonto sidii shalay wax loogu dhiibay bay u dhiibi doonaan oo inta lala tartami doonaan oo ka degi doonaan maaqaan ma dhib kalaa imaan doonta hadda sidii ilaahay wax ka dhigay noqonaysaa laakiin rajo badan
oo ragga hadda xukuumadda jooga inay u dhagan nuglaadaan duruufta iyo sida dadku wax ugu dhiibtay markaan afcaashoodii hore fiiriya ima muuqato. nabadoon in badan ayaad ku sugnayd Puntland marka bal waxaad inaga warantaa xaaladda Puntland ay ku sugan tahay xilligan aan joogno. Puntland marxaladda ay markan ku jirto horta waa marxalad ilaahay siduu qadaray adduunkan maamulkiisa iyo tasarrufkiisa waxaynu ognahay in ilaahay uu gaar leeyahay oo leeyahay laakiin inta bini aadamka laga siiyey inay in kooban tahay oo haddana intaasi aysan qadarta ilaahay ka baxsanayn. marka hadda guud ahaan Puntland nabadgelya ka jirta xilligu waa xilli xagaa dabaadigiisa marxaladaha wadanku hadda waa iska degan yahay. Ramadaan baa laga soo baxay waa la soo iiday caam ahaan wax hadeer dagaal iyo dhib ah oo hadeer Puntland ka jira oo weyni ma jiraan. markii loo noqdo xagga maamulka ilaan caam ahaan Puntland siday hadda tahay iyo maamulku waa kala labo. markii xaaladaha dhinaca laga fiiriyo xilli kala guuray ku jirtaa. xilliga kala guurka waa xilli maamulkii xukuumaddii jirtay iyo golayaasheedii iyagoo awalba waqtigoodii horay 5 sanad 7 bilood ka hor uu ku ekaa qolana uu 9 bilood ka hor ku ekaa iyagu sanad iskaa wax u qabsaa ay ku darsadeen. haddana sanadkii baa hadda gabagaba oo qolana waxa u hartay bil ama 2 bilood taqriiban October already waa kala tegayaan qolada kalena 4 bilood baa u hartay. marka xilliga kala guurka wuxuu leeyahay hadee xasaasiyadiisu qolada hore tegaysayna haraatidoodu ka diyaar garowga waxay leedahay ka tabaabushaysi kuwa soo socda hardidooduna waxay leedahay ka diyaar garowga ka tabaabushaysi. marka marxalad markii dhinac laga fiiriyo runtii la oran karo waa marxalad adag oo waliba midii hadda laga soo gudbay aan isleeyahay kama dhib yara yaa Puntland hadda ku soo aadan. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa si wanaagsan oo khayra oo farxad leh oo ilaahayna raali ka yahay shacabka reer Puntland ay ku qancaan inay wax ku dhamaadaan. Puntland xilliga kan 15 sano ayay jirsatay ama wayba qaangaartay dan si kala u dhaxano marka ma waxa la dhigi karaa Puntland horumar ayay samaysay mise dib u dhacaya jira. boqolkii 30 waxa la oran karaa horumar bay samaysay boqolkii 40. horta magaca Puntland iyo jiritaanka magaca Puntland baa wuxuu yahay 50%. 50%ga kale waa wixii development jidad la dhisay iskuulo la dhisay hameen dhow halkaan xaflad baynu ku qaban 700 oo qof baa ka soo qayb gashay teenage bay wada ahaayeen dadkii intii Puntland la dhisay kadib hana qaaday bay ahaayeen meel walba waxa ka dabaaldegayeen dadka la daadaabay u badnaayeen. marka anigu waxaan oran karaa Puntland wixii la rabay yaan laga heli oo hadda maanta jidad la dhisay iyo dekada la dhisay iyo airport dhisan iyo jaamacado la dhisay iyo adeeg dadweynaha badan oo la qabtay ma muuqdo. laakiin waxa la oran karaa waxa la yiri nin illa qoon indhala oo boqor isagana sadanadiisu waxay ku xirantaa isho saxar kaga dhaco indhoolayaashu ku biiraya hadii ishu saxar kaga dhaco laakiin markuu isha kaliya qabo 100 indhoolu hagi karaa. marka Puntland markii Soomaalida kale loo fiirsho waxaan oran karaa waa nin illa qoon indhala oo boqor. dhawaan Puntland waxa la doonayay in laga hirgeliyo nidaamka axsaabta badan diidmo ayaa ka timid deegaano badan oo ka tirsan Puntland maxaa lagu diidanaa bay kula tahay xisbiyada. waxaa lagu diiday wax iska cad oo waadax ay ahaayeen wax qarsoon ma ahayn. waxaa lagu diiday waxay ahayd wax wanaagsan oo muuqaalka kor ka fiican laakiin hoos waxa ku jira aysan sax ahayn. kalimatul haq wa yuriidu bihi al-baadil shay kalimad xaqa laakiin danta laga leeyahay ay xaq darro tahay yahay dadku inay helaan codkooda inay si xornimo leh qofka ay rabaan oo masiirkooda ku aamini karaan inta u voodaan ay codkooda siiyaan oo one man one vote dhaco cidii dani ma jirto. laakiin in la yiraahdo
keliya waxaa la tixgelinayaa doorashaa dhacday wax allaale wixii doorashadaas suurto gelin lahaa oo xaqnimadeeda muujin lahaana meesha laga saaro dee nirig xalaali hal xaaraanihi nirig xalaala ma dhasho marka arrinta la diidanaa way caddayd magaaladan gaalkacyo aynu joogno websaydyada lagu soo dhigay idaacadaha lagu soo dhigay meel walbay ka muuqatay puntland oo dhan bay ahayd dadka xisbiyada u ololeynayey iyo dadka la rabay inay wax doortaan oo la yidhaha waxbay dooranayaan ay dhiibiyada aanu ku martigelinay puntland bay ahaayeenoo ku caruuro dhalay oo deganaa oo si dadban oo siyaasadaysan oo xukun kororsiya inta loo abaabulay la damcay in wax lagu gembisto dadkuna intuu diidanaa taasay ahayd nin diidan in si dimuqraadiya oo cadaalada oo siman oo dadku qofku codkiisa meeshuu rabo uu la mari karo iyadoon cidina khasbin cid diidani ma jirta laakiin wixii ka horreeyaan la qaban hubka dhigis lama samayn tirakoob lama samayn shuruudaha muwaadinka reer puntland qeexayaa dastuurka puntland kuma qeexna kulli waa laalan yihiin waxaa ku qoran xeer dambaa lagu qeexaya marka waxyaalahaasoo dhan baa muuqday dadkana loo diidanaayo laga qarinayey oo dowladdu ay rabtay inay meel suk ka soo madho dadkii waxaa diidanaana saasay ku diidanaayeen alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahadda iska leh saaka iyadoon dhibaato badani taagnayn haddii arrintaas ilaahay naga xanibay ilaahay baan uga mahad celinayna doorasho ayaa la filayaa inay ka dhacdo puntland xukuumadda kale ee la dooran doono ma kala shaqayn doontaan qaabkii loo hirgelin lahaa nidaamka axsaabta badan xukuumadda dambe ha waa kala shaqaynaynaa laakiin iyada lafteeda shardiga ku xihan baa wuxuu yihi bahashaani tareenku meelaan xadiidka ahayn ma maro shacabka reer puntland wixii hadda ka dambeeya waxaa la yidhi nin xoogaa si ah wuxuu uga tagooday dukaan marka nin baa inta u yimid yuu cayaar buu u tuma suu cayaartii ugu tumeeyey buu indhaha gacanta saaray ninkii dukaanka la joogay xoogaa doqonkaa wuxuu mooday indhaha gacanta la saaraya inay cayaarta qayb ka mida tahay alaab meesha taallay buu ka xaday maalintii dambe ninkii batrooniga dukaanka lahaa baa u yimid wuxuu yidhi wari alaabta maqan meesuuye nin baa ii yimid oo saasaa igu dhacday waa kaa cabbaar buu xanjafiyo waa canaanta kii maalintiibuu ku soo laabtay wuxuus yidhi geedka doqonkaa layla ad ku noqotid suu bahasha cayaartii ula waday yuu gacanta indhaha saaray suuyasaan warmiyuu shalaan eeday buu yidhi indha gacan saarkii marka shacabka reer puntland 15 sano oo maalin walba ah war nin aynu masruufno ama koox waa ka ilbixeen xadiid tareen baa xadiidkaasaa dhigan xadiidkaa ninkii tareenka ku wadi kara yaa darawal ka noqonaya haddii alla idmo intii la diidanaa xisbiyada waxaa jiray deegaano ka tirsan puntland oo ay ka dhaceen rabshado sida qardho gaalkacyo kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur marka mas'uuliyaddaas yaa iska leh mas-uuliyadda waxaa dusha laga saarayaa cidda mas-uuliyadda leh xukuumaddaana kowka ah dhimasho iyo dhaawac iyo burbur wax ka weyn baaba meesha yaaloo dad dhan hadda dastuur baa hamayn dhaweed madaxweynuhu gacanta ku hayo oo wuxuu lahaa annaga kaasaa nala ku meheriyey mid kalena gacantuu ku hayo oo wuxuu lahaa federaalku wixii lagu heshiiyey dastuurka wixii lagu heshiiyey waa dabamara cabdiraxmaan waxaa fiicnaan lahayd in la weydiiyo labadan aad gacanta ku haysid midna ma dhamma midna sidii la isugu dhiibay maaha federaalkuna kii loo dhiibay waa xaday xukuumadda cabdiraxmaanna kii loo dhiibay waa xad dhowaan waxaa la filayaa in xildhibaano lasoo magacaabo qaabka qabanqaabada loo wado ee xildhibaanada lagu soo xulayo sideed u aragtaa adiga xildhibaanada waxaa loo soo dooranayaa aniga siday ila tahay nin baa waxaa laga sheegay ilaah caasiya yaa wuxuu yidhi cadaaba geeraa ii kada haddaana dhinteen laymaba cadaabeen haddaana aakhira tiin oo aana dhiman cadaaba isma aragnayn buu yidhi marka cadaaba geeraa ii kaday inaanu lugooye iyo luufluuf iyo dibindaabye ka bixi weyna waxaaba noo kaday oo meeshaana dhigay waa tayaxumada baarlamaanka puntland haddaanu helo baarlamaan shacab ka wakiila xukuumaddu waa nin shaqaalaha oo nin dukaan uga shaqeeya ninka awnarka ahi dukaankiisa markuu ku xisaabtama hadduu ogaaday inuusan ninkaani faa'iido u soo wadin waa cayrinaya xildhibaanka waxaa keena odayaasha ismaduna waa ansixiyaan
isaguna wuxuu keenaa madaxweynuhu xukuumaddu keenaa asal horta marka dembiga meesha ka dhaco tayaxumada waxaa iska leh odayaasha nabadoonnada iyaga sabab ku kallifi karta inay dadka inta didiyaan qofka ugu dhabar jilicsan oo ugu liito ugu gaabiya inay dadka u soo qabtaan ma garan karo waxaan qabaa marka reer Puntland waxa lagu gorgortamayaa waa codkiin waxa la raba in la xukumaana waa idinka waxa miisaaniyadda iyo shaxda iyo dhaqaalaha iyo wasiirada loo sameysanayaana waa dhaqaalihiin dadka xildhibaanada raba hadda inay noqdaan waxaa la barta horta dawladda hadda maanta jirtaa waa 60 qof madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka golaha xukuumadda waxay ku yihiin 58 xubnood weeye wasiirada iyo wasiirka ku-xigeenadu baarlamaankuna waa 66 labadaa tiro oo isla eg oo 166 mushaarka ugu yar qofka ugu yar oo mushaarkiisa ugu yar oo qaataa waa $1,000 $126,000 oo aan adeegyada ku jirin waa biilka madaxda labada gole imise qof oo reer Puntland gaajo u dhimata imisaa dayacan imisaa jidadka inta baabuurtu budget iska daayay miisaaniyad kale dhaqaalaha noocaas marka meeshan waa loo soo biil tagaa waxaan rabnaa xildhibaan hantiila ah oo biilkiisa ku filan oo $1,000 noo daaya iyo madaxweyne biilka mushaarka noo daayo adeega dawladnimo oo miisaaniyadda loogu qoro qalinka 1,000 shilin oo qalinka loogu talagalay qalinka ku bixiye iyo wasiir ka maarmi kara inuu annaga mushaar noo soo doonto oo ilmaha nagu korsado waxa reer Puntland maanta u baahan yihiin nin isagu wuxuu leeyahay geliya ee aan iyaga wax ka doonin dawladda 60ka ma konton baa mise waa ka badanta inta diyaasbarada madaxweyne ku-xigeenka wasiirada badankooda aqlabiyadoodu waa diyaasbaro dadka diyaasbarada khayr Allah siiyo magac baa u baxay Soomaaliya waxa la yiraahdaa maanta in Soomaaliya nolol ka jirto dadkii qaxay baa sabab u ah oo dibadaha aaday siday dadkooda u taakuleeyeen oo u gacan qabteen abaalka waa u haynaa laakiin ogaada lugooyadoodana waa noola yimaadeen ninkii nolosha xagga ku xumaaday oo ku dhacay oo laga yaabo ilmihii in lagala tagay oo naagtii cayrisay oo nolosha xagga ay ku soo xumaatay isagoo boorsiga laptop isku wato halkan noogu yimid markaasaan reemaha u tunnay calama qaadanay oo soo dhaweynay waxaan niraana anaga reer hebel nin aqoon-yahan noo yimid oo 10 sano ama 20 sano dibadda ku maqnaa ama wasiir baa laga dhigaa ama madaxweyne isu soo sharaxa dhaqanka iyaga ma yaqaan oo dhibaatada aanu qabno ma yaqaan oo masooraha iyo biyo la'aantana haysta kama warqabo oo jidadka burbursan kama warqabo oo dadku xataa sida uu yahay iyo duruufaha iyaga midna ma oga subaxaas wuxuu bilaabaa hanti urursi magaaladan gaalkacyood wasiirada hadda Puntland kaga jira xilka dhowr sano ka hor markii loo magacaabay ma aqaan Cabdiwali ninka la yiraahdo Indhaguran yaa guri reerku u degan yahay halkan ku lahaa haddana gaalkacyo nuskeeda wasiiradu leeyihiin garow xaafad dhan baa waxa loo bixiyay booli qaran oo xukuumaddu leedahay dadka xukuumadda ku jira meeshaan marka dhaqaale tacbaan loo soo raadsaday ma aha dad noogu yimaada inay dhibaato aan ku jiro wax nagala qabtaan wixii hadda ka dambeeyay marka inta aysan iyaguna cunin baan cunaynaa ilaa musharaxa dhaqaaluhu ka dhamaado suu maalin walba qada u samaynayo suu maalin walba qolo u shirinayo suu maalin walba shir u qabanayo suu safar iyo socod ugu jiro habar kasta oo ari sodona meel ku haysto xiradeeda inta istaagaleeya arigaagu muxuu dhibaato qabaa iyo biyo xagee ka hela nin dambe sahal wax nooga qaadaya ma jiro shacabka reer Puntland waxaan leeyahay war waxaru xowdi barte waxa hadda ka dambeeya yaynaan cilla ka qaylinina maanta inuu fursad haysanaa
odayaasha aynu ku khasabno inaysan gaar wax u saxiixin. halkaan maalin dhaweed shir baa ka dhacay jifiyaha beelaha degan gobolkan mudug beel ka mid ah yaa shir ku yeelatay kuraastaanoo dhan waa buuxday ilaa 500 iyo siyaadad ah baa isugu yimid hal xildhibaan baa problemkiisa laga hadlay waxaa la isku raac beesha ciddii xildhibaankaa rabta inay gasho meeshaan aan fadhinoo kale inta soo fariistaanoo nin walbaa faylkiisa iyo buuggiisa soo qaato halkaan imaada dadkaa inuu qanciyo odayaasha nabadoonnada halkaa inay fadhiistaan guddi in loo qabto garsooro ah qofka ugu tayada roon oo ugu daacadsan oo ugu alla aqoon oo ugu ceeb yarna in lala soo baxo kaa markii beeshu soo saadho beelaha gobolka mudug oo dhan haddana in loo shiriyo la yidhaahdo nala doorta hadduu idin anfici waayena cayriyo beesha mid kale ha laga soo qabto 9 xubnood oo gobolka mudug leeyihiin gobolka mudug bay matelayaan markay hadhow tagaanna puntland bay matelayaan beel gaar u magacaaban kartiya nin jeex la geli karaa midna ma jiro fagaaro meelaan ahayn oo xildhibaanada lagu dhaaro qofku beeshu doona ha ka yimaado magacuu doona ha lahaado waa inuu qof reer muduga yahay ama reer puntland dhib maaha madaxweynuhu ilaan magaciya in ayuu leeyahay guriga reer buu ka yimid lama oran karo jifiye heblaha noqdo arrintaa marka waxaan rabnaa waliba dadka aan ku wacyigelinayaa fursaddan uga faa'iidaysanayaa heesihii laga qaadi jiray miiska hoostiisa inta laga baxo barxadda fagaaraha la yimaado musharax miiskan ha yimaado waxa uu qaba dadka ha u sheego sidaanoo kale live inta idaacadaha u soo fariisto meediyaha u yeertaan oo press conference qabtaan ha tartameen codkooda dadka ha maqashiiyeen waxa uu dhaliilaya iyo waxa uu rabo inuu saxo ninka musharaxa ama xildhibaanku madaxweynaha waa ka muhiimsan yahay waxa shardiga ugu adag oo aan rabo xildhibaanada inaan dadka kale u sheego oo aan leeyahay xildhibaanada ha lagu tixgeliyo waxa weeye ninka xildhibaanka waxa la yiraahdaa waa inuu dugsi sare ka baxo shardigu inuu dugsi sare ka baxo kaliya maaha waa inuu yahay caalim diinta islaamka aqoon fiican u leh oo ilaah ka cabsi naga celin karo oo waxa markuu arko xadiis iyo aayad celisa uu garan karo oo is yiraahdaa waxaan ilaahay baa bari kugula xisaabtamaya xeerka la hor dhigo waa inuu garan karaa shariicada islaamka ma diidan yahay mise waa ogosha awal qof marka ilaahayna yaqaan diinta islaamkana aqoon u leh waa inuu noqdaa markaasna dadnimadii iyo dadaalkii dheeraadka ah uu lahaa ku darsaday marka insha Allah waxaan rajaynayaa xildhibaanada sanadkan inay noqdaan kuwii puntland badbaadiya shacabkuna fursad bay hadda haystaan bari inaysan qoomamayn odayaashooda dacalka inay ku dhagaan inay yiraahdaan waxaad magacaabaysaan waa idin la arkaynaa waa idin la ogaanaynaa qofkana istaahilaan codkayga siinaynaa intaas haday dhici weydo reer puntland waxaan rabaa mahmaadaas inaan ku cadeeyo aakhirka meesha wax ku dambeynaya nin waxoogaa wax u dhiman yihiin oo la oran jiray ciise degmada Jiriiban baa aad looga yaqaanay magaalada Gaalkacyo Garowe ciise Lucuun baa la oran jiray ayaan wuxuu arkay qabuuru soo maray qabuuruhu markuu soo maray show ciise mindhaa weligii ma arag qabuuro tiro badan oo meel yaal ciise waa yimid magaaladii buu yimid rag meel fadhiyo u yimid oday diiriye magan jaaf la oran jiray buu yiri walaa diiriye suyeesi buu maanta qabuurihii baan tagay oo waa u soo duceeyay ciise nin bahluulu ahaa odaygu wuxuu jecelaystay wuxuu isiri ninka bahluulka ilaahay ducadiisa waa aqbalayaayo dadkaas wuxuu ugu duceeyay ilaahay waa ka aqbalayaa isagoo oran ciise maxaa ku ducaysay wuxuu yiri ciise Allah oo aqbal siyaboon waxaan ugu duceeyay ma weydiis siya maxaa tiri wuxuu yiri boo waxaan in meel xilli alla idin dhig ragiyo waa la dhaxay waxa la ciise meeyada ducaasay boo meesha yeelaan moodan aragday cool qorraxda dameysha dhaxanta boo meesha ka kicmayaan buu yiri waxra isaga ciyaaraya marka reer puntland maanta haday ka tashan waayaan xildhibaanada iyo madaxda u imaan doonta waxay la tahay ducada ciise haysata doorasho ayaa la filayaa inay dhawaan dhacdo marka madaxweynaha puntland mudane cabdiraxmaan sheekh maxamed farole yaad isdhihi kartaa waa dhaantaa waa bedelaysa anu waxaan qabaa cabdiraxmaan iyo xukuumaddiisa iyo baarlamaanka hadda jooga in maxkamad la saaro sharci lala tiigsado anytime saacaday ku haboonaato waayo waa criminal dambi bay wadanka ka galeen burbur bay u geysteen dhibaatay geysteen
dad shacabay laayeen axdigii iyo qarankii wixii lagu aaminay bay khiyaaneen madaxweynuhu 4 sano isagoo u dhaaranaya yaa tviyadu sii daynayeen isagoo la 4 sano lama doorana 5 sano la doorto 4 sano isagoo kitaabka gacanta ku haya oo ku dhaaranaya gudoomiyaha baarlamaanku isagoo ku dhaarinaya 4 sano inuu madaxweynuhu ku dhawaaqaya 4 sano oo soo socota Cabdiraxmaan iyo xukuumaddiisa la doorto iyo isaguna idaacadda wuxuu ka sheegay 5 sano madaxweynaha la doorto baarlamaankii noocaas ahaa iyo xukuumaddii sidaas ahayd waxaan qabaa wax allaala wixii ay galeen waqtiga ku haboonaatay in shacabka reer Puntland kala xisaabtamaan mana qabo xubin ka mid inay maanta masab damdinta Puntland isugu soo daagto dib ay ugu soo noqoto kulay aniga raayigayga maaha laakiin hadda qalinkana ilaahay baa haya codkana shacabka reer Puntland baa leh dambiyada aad tilmaamtay wax cadayna uma hayno marka adika ma waxa jira wax aad ku cadaynaysaa waxaan ku cadaynayaa kullukum raacin wa kullukum mas'uul can ra'iyati xadiis nabawi ma dadkii ay mas'uuliyadooda qaadeen bishaan Ramadaan baa ugu dambeysay magaaladan Gaalkacyo kuwa masaajid ay ku tukanayeen lagu laayay intee shil ka dhacday dalka toddobaadkan dhexdiisa godad agteeda dad baa lagu laayay 3 qof baa lagu dilay dawladdu xataa kama hadlin kaba tacsiin maamul kale oo iyaga ka dhinac dhisan oo ay aqoonsan yihiin baana laayay mas'uuliyad maaha dambi maaha waa waxa ugu yar aan soo qaadan karo 100 iyo siyaado qof 200 oo qof oo labeentii dadka reer Puntland ahbaa intii xukuumaddaani jirtay la dil yaa lagu leeyay qof ay baareen iyo mid ay qabteen Allah u naxariistay Sheekh Abdul Qaadir iyo wadaadka Sheekh Axmed Daayir ha dad la yiri kiiskoodii bay ka dambeeyeen iyo dad la yiri gacantii ay lahaayeen oo la dilay waa maqan xasan walloorana waa maqan cid kale ma hayn mas'uuliyadda dambigu ku fuulay waa in lagala xisaabtamo waa in dadkii meel ku sheega hantidii ummadda lagala xisaabtamaya dhowr intaas waa malaayiin dollar weeye budgetka Puntland bishii ma qaan waa dhowr iyo 10 milyan miyaa ma qaan 20 milyan ku dhawaad sanadkii waa 100 milyan hadeer la ansixinayo toddobaad ka Puntland oo dad ku nool 2 milyan iyo xoogaa weeye hadduu ugu bato waa 2 milyan iyo bar kana laga dhigi karaa Puntland dhaqaalaheeda wax loogu qaban karaa dad looma bariyeen hay-aduhu dhaqaalaha geliyaan iska badhaaf dambigu marka waagi maxkamadda timaado oo loo yar la qabsado iyo ama dambilaawayaal noqonayaan ama dambi yeelanayaan laakiin hadda waxay ku eedeysan yihiin dayicii ay mas'uuliyadii ay lahaayeen dayiceen iyada dambi ugu filan waa tahay nabadoon dhawaan Puntland waxay shaacisay inay xiriirka u jartay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana xeebta bari laga celiyay markab gargaar waday oo dalka Turkiga uu soo diray marka bal arintaas sida aragtaa arintaas waxaan u arkaa waxa la yiri durwaa wuxuu yiri aamin magacaan hal iga bedelo waa magac habaara Soomaaliga markii la fiiriyo durwaa waa dur iyo dhaqan baynu inagu niraanaayo waa waliga hanasano hoog iyo baay ahaantoolay ku jira habar dugaago dhan bushiri wuxuu yiri magacaan hal iga daay aaminna hal ii baxsh waxa loo dhiibay hal caruur agoon leedahay waxa la yiri hasha caawa ka caawa bari hashaasoo caawa bari qabta hadii suuxi lagu yimaado waxaad sheegatay waa ruuxa laga bedelayaa magac صدح وهم بركي مركي تهاي يوحو يصير الله إله حالك مركن حماية إنتان هالشا وحان موقنا وقيسو أفرت الناس كقوس هاش أفرت الناس بهاشي قوست عبار مركو تشوغي يا هم قرو حمادي اللي فوقاته مركز وحو يصير الله إله بشينتنا فروريها واحد قوستا نريكت سويحا لوي ماذا نريكتي هاشي يوم موقضوات تراهي واكوها magacuna ka har roorti baa loo yimid waxa la yiraahdo war hashiin nirigta isku soo wixii isku suqsuqaysay waa kala carareen war maxaa dhacay wuxuu yiri maxay ku nuugtaa maxay iska nuugtaa hashuna candha laga nuuga male oo candhadu xala jar nirigtiina faruuriyihii uu jara horta shacab Puntland iyo federaalku shacabka Soomaaliya
waxay ula mid yihiin dhurwaaga ammaanada loo dhiibtay dowladda federaalku sanadii xoogaa ay dhisantahay waxay mashquul ku noqotay Jubbaland wax kaloo hawlo ay hayso lama arko iyo safar dibadaayo ay dawarsi dagaalo ku maqan tahay maalin walba iyadoo Soomaaliya khayraadkeedii ceegaago iyo maalin walba reer dawarsi ugu maqan tahay waxay leeyihiin yaa alla wax u dhiiba wax noo dhiiba Puntland iyagu maslaxad shacabka reer Puntland iyo maslaxad shacabka Soomaaliyeed iskuma haystaane hasha amaanada loo dhiibtay nin walba wuxuu leeyahay ana candhada iyo faruuryaha goosanaya shacabka Soomaaliyeed waa shacab shalayna waxa isku diray waxay ahaayeen siyaasiyiin dan kala leh haddana waxa wax isku birta isku lisanaya Soomaaliland ha noqoto Djibouti ha noqoto meel kasto ay Soomaaliya joogto qof kasto Soomaaliya waa Soomaali meesha af Soomaali looga hadlayo aad tacaaw marti ku noqon maysid marka Hargeysa anu ka soo adeegtaa maalin walba taa boosaasan aad safaradu xamar bay iiga yimaadaan gacsadana meel walba wax kala imaada shacabka Soomaalidu dhibaato iskuma qabo laakiin ayaan darada ku dhacday waxay noqotay de kulli dambiyadii aynu galay in baa Ilaahay wuxuu ina ku salladay madax aan inoo naxariisanayn dadna ina kala hayn waxa iyadu rabtana sameynaysa hadda waxa la yiraahdo dawladda federaalku waxay soo dirtay markab raashina waxay tiri waxa leh degmooyin gaar ah oo Puntland ka mid ah garowshiyaha ma siinaya hadda qoladan reer Puntland ilaa wali xasaanad iyo magaciyaga haysto aanu Cabdiraxmaan xukuumaddu siinay xukuumadda Puntland madaxdeed yihiin baan u aqoonsana kuwaanina waxay sameeyeen waxaan fiicnay kuwaanna waxay sameeyeen waxaan loo baahnayna waxay ahayd markabka inta meesha u daayaan in inta wax la isweydiiyo wax la isla saxo dad baa u dhibaataysan aan labada maamul midna naxariis iyo raxmad iyo gacal midna u hayno u baqtiyay hantida deeq Ilaahay u soo qaaday bay ahayd waxay ahayd marka in laga wada hadlo oo labadooda aqli haday isdiidan yihiin aqli kale oo dhexdhexaad inta la helo in dadkii waxaan loogu talagalay looga faa'iideeyo wuxuuna ay noqdaan wax reer Puntland shacabkeeda lagu wareejiyo dawladda federaalkuna haday markii hore wax kala daynay wax saxday ah waa tahay daawadayaalkaasina wuxuu ahaa Nabadoon Yaasiin Cabdisamad oo la yeelanay waraysi gaar ah oo la xiriira xaaladda kala guurka ee Puntland waxaana hordhac u yahay barnaamijyo iyo waliba waraysiyo aan ka sameyn doono inta lagu jiro xilliga kala guurka Puntland barnaamijka waxa dhinaca kaamirada iga caawinayay Mustafa Xarin waxa idin soo saaray idilana socodsiinaya anigu Asiid Cabdullaahi Kulmi Nadaara intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh idinka mudan jazakallahu khayran aad baan idinku tahniyeenayaa idinka iyo TV-ga Somalisat